waxay noqdeen dad dhintay iyo kuwa nolol aan ku qabanay intaba kuwii aan nolosha ku qabanay waa haynaa waa xanaanaynaynaa waa dad Soomaali ah kama maarano inaan qalbigooda iyo noloshii laga qalbay aan ku soo celinay aan dareemayno بلد حواتنا عدين محمود سيد ويساك أنا هاي حتى أنا هاي ما أنا قبصندو لا يبينك إن شاء الله وسلامتي ما أنت أسوق يا ولا هذا قل بسم الله الرحمن الرحيم وأنا السلام يا شعب كهير بلد خاوة ciidamada qalabka sida oo saaka guushaan gaaray dadkii ku soo duulay oo qaran dumiska ahaa burburiyay waxna gacanta ku haya ayaga iyo hubkoodiiba waxaan idiin sheegaynaa dadkii raadiyaalka ka hadlayay oo lahaa waxaan haysanaa balad xaawo ciidamada qaranka ayaa jooga dowladda federaalka joogta iyo ciidamadeedii mana iyo maamulkii macnaha mataqaanaa gobolka ayaa jooga maamulkii gobolka wasiirkii kulli Jubbaland kulli waa la jooga waxay sheegayeen been waaye mana qabsan doonaan mana qabsan nabad baad ku seexan doontaan hadda ka bacdi xabad korkiina kaba dhici doonta hadii Ilaahay yiraahdo insha Allah hadii Ilaahay waa Soomaali baan lahayn waa Soomaali baan dhahaynay waan daynaynay laakiin ma u turaynay laakiin ma jirto turin dambe meeshay galaan ba uga daba galeynaa marka waxa waaye labada ku seexan doontaan haddaad shacabkii tihiin ciidamadiina dharkoodii aad huwan tihiin ayagaa idin ilaalinaya amnigiina laga bilaabo waqtigaas adunkuna soo dhaweeya ciidamadiina waa mahadsantihiin waaye bismillaah Soomaaliya annoolaad Soomaaliya annoolaad ciidamada qalabka sida annoolaadeen dadweynaha reer balad xaawo guul saaka waxa idin ku soo duulay maleeshiyaadkii ay soo tababarayeen muddo fara badan dawladda Kenya oo inta aan ka cabanaynay Soomayna ogeyn meeqa bilood bay ku hayeen meesha muddo 10 bilood ka badan ma ahayn saaka waxay hub soo siiyeen iyo waxay qoryo soo siiyeen kulli waxa weeye gacanta ku hayna kulli waxa weeye ciidamada qalabka sida gacanta ku hayo waxaan haynaa tiro ka badan 250 iyo hubkoodii waxaan haynaa dhaawacyadii waana la keenay waxaan rabnaa insha Allah sida taliyaha ciidanka uu sheegay inaan daweyno waxaan rabnaa isbitaalada caalami inaan geeyno kii darsado hadii Ilaahay yiraahdo tirada meydadkan insha Allah waa xaqiijin doonaa laakiin qasaare wuu jira oo dhimasho ah waxaa marka ummadda Soomaaliyeed maanta u soo hoyday guul dawladda Kenya waxaan ku cambaaraynaynaa falka xun ee guracan ee maalin walba oo ay ku wiiqayso dawladda Soomaaliya iyo dawlad goboleedka Jubbaland ee la daba taaganta waxa Ilaahay hortii idin leeyahay ciidamada dawladda Kenya mar walbana waan u sheegaynaa waa u digaynaa tilaabooyinka guracan ee foosha xun oo maalin walba fashilka ku dambeeyo dawladda Kenya waxaan u sheegaynaa inay ka fiirsato arrinta ayada ka fiirso waa fal guracan waa fal foolxun waa fal aan laba dawladood ka dhaxaynin way ninka saaka hadlayay oo lahaa aniga balad xaawaan haystaa waa nin aan xogogaal ahayn balad xaaw soo argadi ma halkaan laakiin idaacadda ma dhegaysateen balad xaaw annagaa haysana sida uu sheegay taliya waa beentii been buu sheegay مرقاتي بكتي بلحة وساكن قلبت الجوج مرقاتي بكتي وعاوي مركا وحاسو ميران باجرو وان عمبارين إنا رماها سودان دولة كيا وعاوي وحان لنا ومركو بعد يمر لبعض يمر سدحات با وحان أقدقينا الرماها سواشحون أو قرعان أو أيكم الجحامين يصدقك الشعب كالصوماليين
kenya ay ka fiirsa arrinta ayada waxaan mar walba u mahadcelinayaa shacabka dariska aan nahay ee dowladda kenya dowladda soomaaliya dadka shacabka soomaaliyeed oo degan mandheera oo degan ceelwa oo degan wajeer dhammaan waa u mahadcelinaynaa sida nabadda ay u doonahayaan ayna u diidahayaan dhibaatada maalin walbana dhibkaan oo kale way waxa lagu samaynaya aad baan idinkugu mahadcelinaynaa walaalayaal waan idin mahadcelinaynaa waan ognahay inaad dhibaatada diidaysaan cidda dabada ka wadana waan ognahay insha allahu tacaala mana shaqayn doonto mana shaqaynhayo arrinkaas mana shaqayn doono arrinkaas insha allahu tacaala soomaaliya ha noolaato soomaaliya ha noolaato nabaddiidka allaha naga qabto nabaddiidka allaha qabto dabadhilifkana allaha qabto wixii dabadhilif oo dal shisheeye u adeegaya allaha naga qabto faatax waa idin salaamaya marka koowaad waxaan ka xumahay saaka inaad ku waabariisataan xabad laakiin waxaan idiin sheegahayaa wixii ilaahay qoro waa dhacayaan daway ahayd waxaan u tacsiyeynayaa dadkii naga dhintay iyo kuwa soomaaliyeed oo la soo qaldayba waxaan rabaa inaan idiin sheego noloshannada soomaalinimo dowladnimadannada gobolkannaga degmada aanan ku sugannahay war arrinteeda ma dhexdhexaad baan ka noqon karnaa kama noqon karno dhexdhexaad kama noqon karno waxaan rabnaa inaan idiin sheegno waa soo afjarankii banyooley iyo fikirkii ay wadatay kenya soo afjarankeedii way maanta insha allah kuwa harayna waa u yeeraynaa hadday diidaanna meeshay joogaan baan ugu tegaynaa waxaan rabaa inaad sida geesinimada iyo kartida lahood u dhaqateen oo dalkiina u difaacdeen oo ciidamada qalabkiisida u garab istaagteen oo dowladda soomaaliya u garab istaagteen inaa idinkaga mahadceliyo waana wax lagu yaqaanay aabbiyaashiin iyo awoyaashiin mahadcelintaasaan kugu nimid waxaan rabnaa xaaladda inay caadi tahay inaan idiin sheegno ganacsiga ha la furo garoonnadii kubadda ha la furo ciidamada qalabkiisida ha lala shaqeeyo